السلام عليكم أحبابي مeel walba aad joogtaan waa idin salaamay kusoo dhawaada channelkayga tiktoorjiya mawduuca maanta ka hadlayo wuxuu ku saabsan yahay maxaa sabab u ah in dadka qaar ay ku adkaato raaligelinta insha Allah biidmillaahi kariim haddaynu gudagalno mawduuceena maanta marar badan si cilmiya loo sheegay in raaligelinta ay u fiican tahay caafimaadka nafsadeed ee qofka iyo xidhiidhka bulshada haddana dadka qaar way ku adag tahay in ay si fudud raaligelin ugu bixiyaan haddaba dadka ku adag in ay bixiyaan raaligelinta ayaa ka mid ah 1 kibirka dadka qaba kibirka 2 calaamada liidashada 3 khanjilaata 4 baqasho 5 wacyi yari waxaa ka maqan dareenka la dareenashada qofka haddaba dadka noocan ahi waxa ay u baahan yihiin in ay isweydiiyaan raadadka iyo xaaladaha nafsadeed ee uu arkayo qofka uu u gafayo nasiib daro dad badan ayaa karti u lahayn in dadka ku xeeran ay la dareen noqdaan